subax wanaagsan waa 15 bisha May sanadka 2026 tabinta subaxnimadan saaka qodobadan idinkugu hayana waxa kamida intii ay wada socdeen Trump iyo madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping isla markaana ay booqanayeen xarunta loo yaqaan Temple of Heaven waxa dhacay dagaal sirdoon oo hoose waliba dhinacyada Trump la socday iyo dhinaca madaxweyne Xi la socday biyaha hoostooda ayay iska gujiyeen ilaa iyo qaybo kamida hay'adii loo yaqaan Secret Service-ka ee la socotay Trump askarikooda muddo 30 daqiiqo la xayiray arinta waxa lagu tilmaamayaa inay tahay dhinacyada loolanka u dhaxeeya oo aad u adag waxaana lala akhrinayaa taariikh kale oo 2017 dhacday xilligii Trump uu booqanayay gudaha wadanka Shiinaha haddaba loolanka u dhaxeeya hoggaanka sirdoonka Mareykanka iyo waliba dhinaca Shiinaha sidee arintan loogu fasiray socdaalkii Trump ee dhinacaasi Beijing uu ku joogay arintan yaa ka dambeeyay muxuu ahaa waxyaabaha lagu kala shakiyay warbixin ayaan idin sheegayaa oo wali waxa si daqiiqada u soo baxaya dhacdooyin protocolaadku ay daboolayeen laakiin hadda warbaahintu ay banaanka soo dhigayaan ma jirto cid is aaminaysa oo aan ku sheegi doonaa waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa inta aan barnaamijka joogno hay'adda muqaabaraadka dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cidda kaliya ee dagaalka Iran faa'iidada ku qabta ay tahay wadanka jamhuuriyadda shacbiga Shiinaha haddaba sidee Shiinaha uga faa'iideystay dagaalka Iran maxaysa tahay arintan ay soo bandhigayso dawladda Mareykanka war kale ayaan arintaasi ku gorfayn doonaa inta aan barnaamijka faaqidaya khiyaarta ay nala socotay dawladda Iran waxay leedahay waxaan qabjabinay Mareykanka baxay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran oo saaka warbaahinta gobolku ay aad u falanqeynayaan waxaan sidoo kale eegi doonaa oo aan falanqeyn doonaa inta aan barnaamijka ku guda jiro saaka muxuu yahay ubuucda fashilka wada hadalka u dhaxeeya Mareykanka iyo dawladda Iran maxay arintan ku tilmaamayaan khubarada waaweyn ee falanqeynaya siyaasadda amuraha dibadda iyo xiriirka caalamiga subax wanaagsan ayaan idin leeyahay khiyaarta ay nala socotay waxaan sidoo kale dulmari doonaa jaraa'idka waaweyn waxyaabaha ay ku soo bandhigayaan gobolka bariga dhexe loolanka diblomaasiyadda iyo waliba xiisadihii ugu dambeeyay jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa subax khayr leh oo faa'iidooyin badan ay ku dhex jiraan inta aan jimcadan ku jirnaan marka hore isxasuusina akhrinta suuratul kahfi salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad u badino masaakiinta oo aan gacan siino iyo waliba in qaraabadu ay isbooqato saaxiibada inagu xiran jimco wanaagsan meesha aad joogtaan soo qora qaybta commentiga oo jimco wanaagsan aan iswada dhahna dhamaanteen isla markaana aan iswada baranno aad baad u mahadsantiin soo dhawaada moogta kala duwan ee gobolka falanqeynaya waxa ay si weyn wax uga qorayaan xiisad la qariyay oo u dhaxaysa hay'adda sirdoonka Mareykanka ilaaladii Trump kala socotay iyo kuwa jamhuuriyadda shacbiga Shiinaha xilli madaxweyne Xi iyo Trump ay booqanayeen halka loo yaqaan Temple of Heaven oo ku taala magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha aagaasi oo ah mid taariikhi ah arintani waxay ka dambeysay leeyahay markii mid kamid ah askartii hubaysneed ee Trump la socotay ee Mareykanka ahayd ay kuwa Shiinuhu hor istaageen isla markaana ay u diideen aaga in uu soo galo taas oo markii dambe keentay dhinacyadu in ayba ku sigtaan in ay gacan isla aadaan oo ku dhawaad 30 daqiiqo murana ayaa soconayay arintan lama oga inay tahay mid horey loo sii qorsheeyay oo Shiinuhu ay ka shaqeynayeen iyo inay tahay mid si caadi ah isaga dhacday oo ahayd in amniga oo kaliya la sugayay laakiin dadka xog ogaalka waxay leeyihiin tan oo kale Trump waxay ku dhacday markii sanadkii 2017 uu booqanayay Shiinaha halkaasina uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha hadda talada jooga ee wadankaasi
haddii aan eego wararka laga qoraya arrintan waxaa la leeyahay xiisad amni oo aad u kulul ayaa ka dhex qaraxday ciidamadii ilaalada gaarka ahaa ee madaxweynaha dalka Mareykanka ee Secret Service loo yaqaano iyo saraakiisha ammaanka Shiinaha xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Beijing si uu ula kulmo dhigiisa wadankaasi Xi Jinping. wararka ka imaanaya warbaahinta caalamiga iyo wariyaashii la socday waftiga ayaa sheegaya in shaqaale hubaysan oo ka tirsan hay'adda Secret Service laga hor istaagay in uu gudaha u galo munaasabad rasmi ahayd oo ka dhacaysa goobta taariikhiga ah ee Temple of Heaven halkaasi oo Trump iyo Xi ay ku lahaayeen barnaamijyo rasmi ah oo ka mid ahaa socdaalkii borotokoolka iyo soo dhaweynta. saraakiisha ammaanka Shiinaha ayaa la warinayaa in ay u diideen in sargaalka Mareykanka ah uu gudaha u galo hubkiisa arrintaasi oo si degdeg ah u dhalisay baa layiri muran adag iyo dood kulul oo dhaxmartay labada dhinac sida ay sheegayaan wariyaal goobta ku sugnaa. xaaladdu waxa ay gaartay heer sare oo kacsanaana taasi oo sababtay in gelitaanka goobta dib loo dhigo muddo ka badan nus saac iyadoo labada dhinac ay isku mari waayeen habraacyada ammaanka iyo sida arrintani loo falanqeynayo. mid ka mid ah wariyaasha ka socda wargeyska The Telegraph ayaa bartiisa X ku qoray tan iyo markii aan halkan nimid waxaan aragnay iska horimaadyo badan oo kulul oo dhaxmaraya shaqaalaha Mareykanka iyo ammaanka Shiinaha ayuu ku yiri qoraalkan uu ku baahiyay barta X ee hore loo oran jiray Twitterka. sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in saraakiisha Shiinaha ay dhowr jeer isku dayeen in ay joojiyaan dhaqdhaqaaqa saxafiyiinta Mareykanka iyo xubnaha wafdiga Trump gaar ahaan marka ay isku diyaarinayeen in laga dhaqaaqo goobaha kulamada loona gudbo kolonyada madaxweynaha taas oo qatar weyn loo arkayay mararka qaar iyo borotokoolka oo meelaha qaar ka leecanayay. ilaa iyo hadda aqalka cad wax faahfaahina kama bixin dhacdadan halka ciidamada Secret Service aysan si rasmi ah arrintan wali uga hadlin. taariikhyahanada ee arrimaha diblomaasiyadda iyo ammaanka falanqeeya waxa ay tilmaamayaan dhacdada Shiinuhu inaanay ugu bahayn marka uu booqanayo madaxweyne ka soconaya dalka Mareykanka. dhacdadan cusub ayaa dib u soo nooleysay xusuusta dhacdo kale oo la mid ahayd sanadkii 2017 markaas oo Trump uu booqasho ku joogay loo yaqaano nuclear football oo ah boorsada sirta ah ee madaxweynuhu uu ku bixiyo amar kasta oo nuclear ah. warbixinta waqtigan waxay sheegaysaa in saraakiisha Shiinuhu ay isku dayeen inay ka hor istaagaan sargaalkan in uu gudaha galo howlkii weynaa ee loo yaqaanay Great Hall of the People taas oo israaxriix iyo jahwareer kooban dhaxmaray labada dhinac. hase ahaatee ciidamada Secret Service ayaa beeniyay wararka sheegaya in askari Shiinaha ah dhulka lagu tuuray xilligaasi oo waxa ay tilmaameen in aanay arrintaasi jirinba. kulanka Trump iyo Xi ee shalay ayaa lagu tilmaamay mid xasaasi ah oo saameyn weyn ku leh siyaasadda caalamka iyadoo labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimo badan oo xiiso leh oo dunidu ay si weyn u falanqeynayeen. isla wararka la xiriira sirdoonka iyo waliba qaaradda Aasiya saaka aad bay u badan yihiin markaan eegno sida ay wax u socdaan. markaan eegno sirdoonka wadanka Mareykanku waxay leeyihiin cidda kaliya ee ka faa'iideysanaysa dagaalka wadanka Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya waa dawladda Shiinaha taas oo ka helaysa awood dhaqaale iyo waliba kobac military intaba. warbixin sirdoon oo si qarsoodi ah Mareykanka looga helay ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Shiinaha ay si istiraatiiji ah uga faa'iideysanayso dagaalka Iran si uu guulo uga gaaro Mareykanka dhinaca militariga, dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo saameynta caalamka. sida uu baahiyo saaka wargeyska The Washington Post laba mas'uul oo Mareykan ayaa sheegaya in qiimeynta loo diyaariyay gudoomiyaasha taliyaasha isku dhafka ah ee ciidamada Mareykanka ayaa tilmaamaysa taas oo walaac ka dhex abuurtay waaxda dagaalka ee wadankaasi maadaama dagaalka Iran uu keenay
qarash siyaasadeed iyo waliba istaraatiijiyad aad u culus. warbixinta oo toddobaadkan la diyaariyay ayaa adeegsata baa lidhi qaab loo yaqaano DIME kaas oo lagu qiimeeyo awoodda dowladeed 4 dhinac: diblomaasiyadda, warbaahinta, militariga iyo dhaqaalaha. sirdoonka ayaa sheegay in tan iyo markii dagaalka Mareykanka iyo Israel ee ka dhanka Iran uu bilowday 28 February, Shiinaha uu hub ka iibiyay xulafada Mareykanka ee Khaliijka, taas oo xilligaasi ay la tacaalaysa baa layidhi weerar gantaala iyo diyaarado iswada oo halis ah. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Beijing ay gacan siisay dalal badan oo caalamka ah oo wajahaya dhibaato dhinaca tamarta ah kadib markii la xiray marinka Hormuz, marin biyood istaraatiiji ah oo caalamku uu si weyn uga helo shixnada ganacsiga iyo waliba qulqulka tamarta adduunka. qiimeynta Mareykanku waxay tilmaantay in dagaalka uu si weyn u cunay kaydka rasaasta gantaalaha Mareykanka, kuwaasi oo muhiim u noqon lahaa baa layidhi haddii mustaqbalka ay dhacdo iska horimaad weyn oo la xiriira Shiinaha ama Taiwan oo dalkaasi Shiinaha uu weeraro Mareykankana xilligaasi looga baahan yahay gurmad military. warbixintu waxay intaasi ku dartay in Shiinaha uu ololihiisa warbaahineed ku daray dhaliilaha caalamiga ah ee ka dhanka ah dagaalka, isagoo colaadda ku tilmaamay mid aan sharci ahayn, isla markaana muujinaysa siyaasadda Mareykanka inay halis badan wajahayso. sirdoonka dowladda Mareykanku waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Beijing ay muddo dheer doonaysay in la weeqo sawirka Mareykanka ee ah ilaaliyaha nidaamka caalamiga ah, sida lagu yiri warbixinta The Washington Post, iyadoo dagaalka Iran loo adeegsanaya baa layidhi caddayn muujinaysa waxa uu Shiinuhu sameeyay maamul xumo degdeg ah oo military sida uu ku eedeeyay Mareykanka. afhayeenka waaxda dagaalka ee Mareykanka ee Seal Bernal la yiraahdo ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya in miisaanka awoodda caalamiga ah uu u janjeero dhinaca Shiinaha. waa qalad gabi ahaanba in la yiraahdo awooddii caalamiga ahayd waxay u wareegtay dhinaca kale marka laga reebo Mareykanka, ayuu yiri. dhinaca kale aqalka cad ayaa sheegay in 38 maalmood gudahood si weyn loo burburiyay awoodda militariga ah ee dowladda Iran. Mareykanka iminka waxa uu dareemayaa in dagaalkiisa uu ka weecinayo dhinaca dowladda Iran, waxaana muuqanaya tartanka dowladaha kula jira hadda inay ka faa'iideysanayaan dagaalka. isla wararka bariga dhexe haddii aan sii eego, dowladda Iran waxay ku dhawaaqday in kaliya waxa ay samaysaan ay ahayn iska caabin iyo dagaal muddo 40 maalin ay kula jireen dalka Mareykanka iyo nidaamka Israel iyo dowlado kale oo si qudbasira ah wadankaasi duqeymo uga sameynayay oo ah kuwa Khaliijka. waxa uu leeyahay waxaynu qabjabinay dunida cadaaladeeda laga baadi goobi karo. sidaasi waxaa sheegay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi. sida ay qorayaan warbaahinta waaweyn ee gobolka bariga dhexe, wasiirka amuraha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in tallaabooyinka iyo iska caabinta ay Iran samaysay aysan ku koobnayn oo kaliya dagaal la galay Mareykanka iyo nidaamka gacan ku samayska ah ee bariga dhexe ee Israel, balse ay saameyn weyn ku yeelatay nidaamka caalamiga ah iyo aragtida dunida ee awoodda Iran. Araghchi ayaa hadal ujeediyo ku sheegay in waxa dhacay uu bedelay sawirka Iran ee caalamka, isagoo xusay in dalal badan iyo bulshada caalamku ay hadda sugayaan in gobolka laga hirgeliyo nabad iyo xasilooni waarta, taasoo ku timid buu yiri nafurnimo ay samaysay dowladda jamhuuriyaddu. waxaan Iran sameynay buu leeyahay ma ahayn oo kaliya iska horimaad lala galay Mareykanka iyo Israel, waxaynu saameyn ku yeelanay dunida oo dhan. bulshada caalamka maanta waxay sugaysaa inaan si nabada u xaqiijino gobolka, ayuu hadalkiisa ku daray. isagoo sii hadlaya waxa uu carabka ku adkeeyay in ay si xoogan uga qayb galeen diblomaasiyadda, isagoo oo sheegay in diblomaasiyadda Iran ay ku salaysan tahay askar u adeegaysa nidaamka jamhuuriyadda islaamiga ah iyo mabda'a walaayatul faqih oo ka dhigan buu yiri isku tiirsanaan iyo mabaadi wadankaasi lagu qotomiyay. waxaan gudan doonaa howlgal kasta oo naloo egmado
ha noqoto istaagista cadowga hortiisa ama wada hadal diblomaasiyadeed ayuu sidoo kale yidhi. Caraqji ayaa sheegay in dunidu hadda garowsatay awoodda iyo saameynta Iiraan, isagoo yidhi dunidu waxay fahantay in ay la macaamilayso dad haddii ay go'aansadaan ay xaaladda dunida madaxa hoos u rogi karaan oo dowladda Iiraan loo fahmayo inay tahay mid aad u weyn. dhanka gobolka, wasiirka dibadda Iiraan waxa uu ugu baaqay in dalalka gobolka ay xoogga saaraan wada hadal iyo iskaashi, isagoo tilmaamay in labada qodob ay yihiin damaanadda ugu weyn ee amniga iyo xasiloonida waarta ee gobolka Khaliijka. waxa uu xusay in dalalka gobolka ay maanta ka faham badan yihiin sidii hore, amniga gobolkana uu isku xiran yahay, isla markaana aanu ku tiirsanaan karin quwado dibadda laga soo kareystay, isagoo markaasi ula jeeda dowladda Mareykanka. dalalka gobolka waxa ay maanta fahmeen buu yidhi amniga, waxaana la joogaa xilligii laga maarmi lahaa Mareykan iyo Israel, sida uu doodiisa mar kale u dhigay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iiraan Dr. Abbas Araqji, oo si weyn arrintan u faaleeyay kuna tilmaamay in iminka la joogo meeshii ugu sarreysay. subax wanaagsan akhyaarta nala socota, jimcaha habboon ayaan idin leenahay. tabinteennii koowaad ee saaka iyo barnaamijka lafagurka diblomaasiyadda iyo faaqidaada dhacdooyinka caalamka oo aad ka daawataan channelka Cabdilcasiis Barrow. jimcadan maanta qaybtan intaas ayaan ku hakinayaa. jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay, waqtigu ha idin samaado. soo dhawaada.